وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي. شيخ waxaan marka hore ku bilaabaynaa haddii ilaah yiraahdo su'aalaha waayo ducada in wax laga dibdhiga ma fiicno ducada waxba laga dibdhigayo su'aalaan ku bilaabaynaa saa'ilkan wuxuu weydiinayaa maadaama ilmaha ay nashiidooyin akhriyeen carruurta maadaama ay nashiidooyin akhriyeen ma bannaan tahay in nashiidooyin miyana bannaanayn in nashiidooyin loo akhriyo rasuulka sal alla alay wasallama sida rabbi salli cala alxabiibi muxamed wa cala alaali man hum alkuramaa سوما بنانا أرنتاس مدام نشيدوين كلا ولا أخنا تفضل شيخ عبد الرحمن. بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. طبعا قفكاس حوا سؤال حجة ولا دليها نملينا يا مركا نشيدة أما هالنقطة نشيدة واجهر لقاعد جري أما مدن بهالنقطة هذه إن حد قدب كجرين هذان حد قدب كجرين غلو كجرين غلو حلو جدا إن النبي عليه الصلاة والسلام كحد بقدبته سيدي قبله هسي وكله يري مارت أيوة النبي أمانة أيوه وفينا نبي يعلم ما في غدي وحنوجر النبي بري واحد عدونه مركا تاك جوجير النبي غيبك إلهي وباؤك سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله مركا نشيدة هدي أي أما مد عسر أتها مد هرو قديم أيتهاي هدي ألفاد وأيتها ألفاد أن كجر شركيات بدعيات أن كجر أو شيء إسكا نبي أمان إسكا لما لها إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن. سائل كان سؤال محوك سابسنت هاي قف كشقيا meelaha lagu hayo dadka waaweyn lagu hayo marka saailka wuxuu leeyahay waa nadiifiyaa marmar marka qaarkood waxaan galaa qof uu ku jiro yani dad aan miir lahayn oo kale qaarna miir waa leeyihiin marka sheekh اختلاط أرنتا من نقنيسا أما خلوة من نقنيسا هدي أنقف عن نظيفنايو أو أنقل أوجره اختلاط أرنتا من نقنيسا أما خلوة من نقنيسا أرنتا يلا وقف قل كجرو أو ضدك أي مثلا ويل كه كلا سينيور ستودنتسك. بسم الله هدي قفك أدوك شو قف نمان قل كجرا نظيفنيس مثلا hadduu yahay guri la nadiifinayo ama dad neersin home degan yihiin ama isbitaalba ah oo meel iska publicay tahay furan khalwo ma noqonayso طبعا اختلاطna ma noqonayso qofta haday nadiifisa markaa soo nadiifisa meesha ma noqonayso haday iska ilaaliso طبعا ma noqonayso in sha Allah taala waxa la iska ilaalinaa khalwada meel aad kali isugu tihiin adiga iyo ninkii oo kaliya nin uu ku jiro keligii qol ah oo adigana ku jirto oo la isku hawaysan karo oo maaragtay wax ka dhici karaan shaydaan idin saddexayn karo kaasaa la diidaya ama maaragtay sariir la wada jiifo oo ama dad ay ku jirjiraan dhaawacaha ama isbitaal uu yahay hadday soo nadiifiso qoftii taa ma noqonayso ikhtilaad ma noqonayso khalwa wabillahi tawfiiq. بارك الله فيك جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن. سائل كان وحويدينا يا علماء maxay ugu istaagi la yihiin arrimaha Soomaaliya dhiiga daadanayo ay u joojin la yihiin maadaama dadka dagaalka wado ay culimo sheeganayaan culimadu ma arrintaas u istaagaan oo dagaalka wadanka ay joojiyaan. bismillah masalada adiga ma joojisay naftaada culimada daa u diraysid maxaa ugu diray culimada adiga daa jooji weysay
culimmada markaa dadka dabcan culimmadu way isku dayeen markii u horreysay oo dowladda shariifka lasoo doortay oo jabuuti laga yimid culimmadu waxay isaga yimideen adduunka oo dhan waxay isku dayeen inay xabadda joojiyaan ciidamada ethoobiyaanka meesha ay ka baxaan ciidamadan halaha kaari ugaandhiiska iyo burundiiskan ay ka baxaan meesha waxay yidhahdeen 3 bilood gudahooda ha lagu heshiiyo culimmada talada ay soo jeediyeen oo dhan waa la diiday dabcan shabaabkaa diiday markaa waxayna ahayd dhibku waa yaraa markaa culimmada haddii wax laga diiday dee culimmadina wax salda ma haystaan awood ay wax ku fuliyaan ma haystaan marka xabadiina way socotay ilaa maanta ciidamo ka badanaa yimid balaayo dhan baa timid wixii maaragtay culimmada waxaa loo baahan yahay dadkao dhan inay taageeraan oo dowladda saldadeeda lagu taageero awooddii dowladdan lagu taageero ay leeyihiin awood ay wax ku fuliyaan marka ilaa haddana waa qaylinayaan culimmada waa la wadaa labada darafba waa la hadlayaan intaas ha la joojiyo dagaalka xabadda ha la joojiyo annagaa soomaali ahoo muslimo walaal aan wada hadalno aan dhammaysanno waxeenna inta dad kale ay soo geli lahaayeen marka gaaladii waa ka badan yihiin dadku waa ka badan yihiin intuu dagaal socdana faragelintaada waa badanaysaa marka ilaa iyo hadda waa dadaalayaan culimmada insha allahu tacaala ilaahayna waxaan weydiisay inuu dhiigka joojiyo socdo dadka dagaalka wadana uu garadsiiyo caqligooda ilaahay uu soo celiyo subxaanahu wa tacaala wabillahi towfiiq jazaak allah khayr sheekh cabdiraxmaan saa'ilkan wuxuu weydiinayaa waa nin dhallinyaro ah wuxuu leeyahay haddaan ahay nin dhallinyaro ah seen uga joogi karaa fidnada haweenka aanan dhib ku dhicin seen uga joogi karaa ha la ii duceeyo in ilaahay uu isiiyo qof wanaagsan oo aan dhib ii keenin oo trouble iyo waxaas aan ii keenin please magacayga iyo emailkayga anonymous ka dhiga it's anonymous insha allah we're not going to tell your name and your email insha allah bismillaah naagaha iyo zinada waa waxa ugu fidna badan waddankan aad ay u badan tahay saan annagu u malaynayna xataa ma aha marka ilaahay subxaana wa tacaala dhallinyarada iyo gabdhaha ilaahay ha ka xifdiyo zinada iyo xaaraanta allah ha ka xifdiyo zinada aad u xoog badan tahay marka waxaad ku nabadgeli kartaa oo keliya inaad guursato guurso gabdho waa joogaan diyaar ah adigana haddaad guur diyaar u tahay guurso lacag badan lagama rabo kharash badan ma jiro gabadhaada guurso adigoo xalaal ah gabadhaad jeceshahay jaamacaddaadii la aad iskuulka la aad suuqa la aad meeshaarta la aad ilaahayna raalli idinka noqonayaa labadiinaas haddaa ilmo dhashaan ilmo xalaalaha dhalaysaan labadiinana waxaa ka nabadgelaysaan fidnada marka guurka waa protectionka ugu weyn oo dhallinyarada ka ilaalin karo inay ku dhacaan zinada iyo xaaraanta iyo waxa xun ay ku dhacaan marka ha la guursado siduu nabiga yidhi yaa macshara shabaab man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj dhallinyaro ninkii kari karo wuxuu ku guursado ha guursado faman lam yastatiic facalayhi bisawm hadduusan wuxuu ku guursado kari kareen ha soomo haddaad dhallinyaro tahay masaajidka ku jir dhallinyarada masaajidka imaaw soonka sunnada soon haddaadan guursan karaynin casharada dhegayso masaajidka ka agdhowow dhallinyarada suuqa ku jirto oo khatarta ah iyo gabdhaha suuqa ku jiro halista ah kuwa ka fogow dadka fiican oo nadiifta ah la soco saasaa ku nabadgeli kartaa insha allahu tacaala wabillahi ilaahina kaa xifdiyo subxaana wa tacaala allahuma xasin farjah wadahir qalbah ilaahay qalbigiisa ha daahiriyo farjigiisana allaha ilaaliyo qofka Amin. Jazakallah khair, Sheikh Abdurrahman. This brother or sister is questioning, saying, Assalamu alaikum, I wanted to know ways to pursue the deen. I'm a student in college and I want to be a better practicing Muslim, but sometimes I feel it's hard to be a better Muslim and focus on Akhirah because of my environment and how much school and work takes up my time. Can you please give me and other young adults facing this to focus on their deen and become stronger practicing Muslims and focus on Akhirah? Jazakallah khair. And advice, basically. Yes.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The reality of life, not just in this environment, in every environment, that there's always distractions. We will always have distractions. And that is why we have learned that there are moments where you'll be energized to do your ibadah. Take advantage of that time and do as much as you can. Do nawafil, sunan, whatever you can, since you are in the mood of doing so. And there are moments where it will pass by you, even if you're not really distracted, but you're probably emotionally exhausted. Then don't ever let go of the mandated objectives that you need to do, like the salawat and so forth. That's number one. Number two, if you want advice to where it helps you to maintain your ibadah and uplift your spirituality, then hold on to as-salah. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Whenever you maintain your salah on time, and you're into your salah emotionally and physically, that's all the energy that you will need to carry you to the next mission that you need, or the next step that you need. Rasul sallallahu alaihi wasallam used to see the salah for him the comfort. أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلَالِ. The salah itself was that element to protect you from the outside world of temptations. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. The salah is the pillar that holds everything together. Imaduddin. It's actually what matters in reference to what I know about you or do not know. How I can either praise you or criticize you. It's a salah. It is that level to where it distinguishes the right from wrong. And that's number two. Hold on to salah. Number three, ilzam al-dhikr. Always have Allah Ta'ala mentioned by your tongue. You don't need time. The Shaykh right now, Shaykh Abdul Rahman is next to me right now. He doesn't need time. He can say, I'm busy because I'm answering questions. But at the time that he's sitting there, he can say, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah to himself. Alhamdulillah, Alhamdulillah. So Rasul sallallahu alayhi wa sallam says, لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. Let your tongue always be moist with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala says, الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. They remember Allah subhanahu wa ta'ala a lot. Men and women. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Look at this ayah. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. So you don't need to be in a specific stage or setting to say the dhikr. Whether you're sitting down, standing up, driving your car, sleeping, whether you're daydreaming, اذكروا الله ذكرا كثيرا. And as long as you are remembering Allah Ta'ala, Allah Ta'ala is mentioning you too. And that will help you. That will boost a little energy into you. So always have the dhikr. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى يستغفر الله تعالى أكثر من في كل يوم أكثر من 60 أو 100 مرة أو 70 مرة كما في اختلاف الروايات. So always have the name of Allah. Fourth, find yourself a friend that can remind you of Allah subhanahu wa ta'ala. إن الرجل الصالح الذي إذا رأيته ذكرك بالله. مجرد الرؤية. The person that is a good person is the one, as soon as you see that person, he reminds you of Allah subhanahu wa ta'ala. He doesn't even need to talk. She doesn't even need to talk. They don't even need to socialize, just by looking at them. And how many times we see someone, we say, MashaAllah. Just by looking at them. Find yourself a sadiqun saduq, a person that will be honest with you and sincere and loyal to you. Find that kind of person. Fifth, you might not be able to do everything that you need to do, but you definitely have in the power to prevent yourself from doing what's haram. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. So if you cannot do everything that's required from you
in reference to al-ibadah or the al-awamir, you can definitely secure yourself from al-muharramat. Because every time you do a sin, nukta sawda fil qalb. There's a black dot on your heart, and then there's another one, and then another one, and another one, until your heart becomes completely black and dark. It cannot distinguish between right and wrong. So if I can't do the salah in the masjid, I definitely can lower my gaze. Do you see what I'm saying? If I can't read the Quran every day, at least I don't see the magazines that are wrong. If I can't go to hear a halaqah from the shaykh, at least I don't need to watch TV. Do you see what I'm saying? You balance yourself and protect yourself by not doing what's wrong. Because إِنَّ السَّيِّئَةَ تَدْعُو أُخْتَهَا. Whenever you do something wrong, it will help you to do something wrong after that. And this needs to be a lecture, but these are just a few points, inshallah. Jazakallah khair, Shaykh Abdul Hakim, for that answer. And also, I think this question is also in English. Brother or sister is asking now, I think it's a sister. If a woman misses Ramadan, she misses Ramadan, and because she was pregnant or she was breastfeeding, does she fast after Ramadan to make it up or pay money? I mean, fidya. Anytime a person, first of all, I'd like to apologize that I'm answering a fiqh question while the sheikh is here, so my apologies. Anytime a person misses a day of Ramadan, they have to make it up unless the reason for them missing that day is permanent, like a terminal illness. If a person has a disease or illness that's permanent, then they can never make it up. But as long as you left or you did not fast because for a good reason, and you're still capable to make it up, you always have to make it up. So first thing is, yes, you have to make it up. Now, there are situations where with making up for the missing days, you also have to pay penalty. And just a little principle into this so you can understand it. Anytime that you did not fast because your well-being, then all you need to do is just make it up. That's it. You don't have to do any penalty. Anytime you missed Ramadan because you're concerned of the well-being of someone else other than yourself, then you have to pay penalty. So if the woman was pregnant and she did not fast because she was concerned for her fetus, then she also needs to feed as well as make it up after that. If she was concerned for her own health, then she doesn't need to pay the penalty. Do you understand? Just take that summary. Inshallah, it works almost all the time. Jazakallah khair, Shaykh Abdul Hakim, barakallah fiik. Su-aashan wax badan bay soo noqdaan su-aalaha markasta culimada noo imaadaan. Walaalka wuxuu leeyahay waxaan akaab driver marka aanan ku talagelin haddaan qof khamro wato ama khamro aan qaado lacagtaas maxay noqonaysaa lacagtaas marka yani maxay noqonaysaa ma la isticmaali karaa mise xaraam bay noqonaysaa bismillah no bismillah ar-rahman ar-rahim alxamdulilah lacagta haddii qofka tagsiila uu yahay oo isaga uu qaado ninka uu qaado markaa wax wato masalan isaga qarsiin dhala boorsu wataa dhala wax ku wataa khamru ku wataa wuxuu rabaa ku wataa boorso xiran uu wataa adiga marka inaad fatashto oo aad muxuu wataa tiraahdo oo baarto shareecada kuma saare waa qaadaysaa isaga wixii u qarsoon oo isaga boorsada uu ku watana wax dambi uu kaa soo gaara ma laha haddii uu khamriga masalan dhal walba gacanta ku wataa bac uu ku wataa waa ujeeda adiga isagaad qaadaysaa culimmadu waxay yidhaahdeen qaadidda isaga la qaadayo waxa uu wata isagaa asalka ah
marka isagu waa la caf waxa uu wato yarka ah ama dhalada uu wato waa la cafinaya oo asalka waxa la qaada waa isaga waxa yiraahdaa waxyaalaha qaarkood waxa la dhaafaa waxa uu wato waa iska dhaafaa laakiin haddii noqoto khamri aad qaado kartoona khamri aad maartay intaad ogaato inuu yahay khamri wixii adoon ogeyn aad qaado meel geysa masalan tareela wada taxi iska dhaafe waa lagu xiri lagu ma sheegin meeshii aad geysay inay khamri taad ogaatay mar dambe waxba lagu ma haysta iyadan laan maadan ogeyn المجهول كالمعدوم علماء يرادان يعني waxaan la aqoonin waa waxaan jirin oo kale marka waxba lagu ma haysta taasna laakiin haday dhacdo meel dhaxado joogina khamri oo wada ninkii kartoona wato oo waxa wado asido xamaalaysa khamri yihiin marka ma daadin karto meeshii kuma dejin kartid marka gey meeshii loo waday xoolahaas ka soo galo sadaqa lacagta ka soo gashana يعني اسك صدقي اساس علماء يرادين كبخي مالها خيرك ان شاء الله تعالى ساس اديغو الهي كاغا عفنا يا سبحانه وتعالى وبالله التوفيق سؤاشا جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن سؤاشا وسائلك وحولي قف قالوا جفتي مسين كرا انا قلبي صوت دماي سي ان قلبي صوت دماء قف كان مسلم كان هين مسين كرا جفتي سي ان وسودوي هو سين كرتا ان شاء الله تعالى وبنانتها زكاه ابو wax laga siinaya zakah hadii la helo xoolaha zakada la bixinayo wala siin kara qof gaal oo rabin la soo jeedo wax waa laga siin kara marka hada hadiyad siiso dhimal in sha Allah ta'ala islaamka ugu soo jeedayso way banaantahay in sha Allah bas iska ilaaliya waqtigan hada Christmaska lagu jiro inay hadiyada gaalada ay ku soo dirayaan ayaga waa laga aqbali karaa mararka kale sa adiga u siin karto laakiin waqtigan Christmaska waqti diimeed loogu talagalay dadka la soo jeeto loogu talagalay dacwo ahaan marka hadiyada waqtigan oo kale ha aqbalin lama aqbali karo ma banaana sharcan in la aqbal laana waxa ku jiro waa dacwo waa fitna waa khatar adiga dacwo lagu saadiga u soo jeedinaysa lagu soo jeedin adigana ilmahana ha laga ilaaliyo inay sugaan waqtiga Christmaska oo ciidihiisa inay hadayaga qaataan gaalada oo maartay ay sugaan Christmaskii oo ay saas ku qaataan oo ay noqoto sida anaga ciidaha aan u sugu jirno kale ciid weynta ciidareed ilmaha wala sugu jiray wana shacairta islaamka kamid tahay marka in laga ilaaliyo waqtigan arrinkaas waa daruuri jiddan waa laga maarmaan lama qaadan karo hadayada gaalada oo Christmaska xilligan hadda la joogo oo ciidahooda ku aadan laakiin waqtiga kale caadiga ah waa laga qaadan karaa hadiye gaalka hadina waa la siin karaa wabillahi tawfiiq جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن سائل كان wuxuu weydiinayaa aroosyada waxa laga shidaa music iyo heeso hatta kuwa wadaadada marka ma banaan yahay arrinkaas hatta dad wadaad sheeganaya aroosyadooda music baa laga shidaa iyo heeso arrintaas ma banaanta ما بنانا طبعا موسيقى iyo heesaha iyo raqsiga iyo waxan maartay hoteelada lagu qabana gabdhaha iyo wiilasha isdhex galay ma banaana sharcan masala banaan ma ama wadaad laga tumo gurigiisa arooskiisa laga tumo ama wadaad qofaan wadaadayna laga tumo arooskiisa midna ma banaana yani waa masala xaraana waa sharcan hadad guri dhisayso waxa laga rabaa in lagu dhiso sida shariicada islaamka gabdhaha haday buraanburayaan waa loo ogol yahay gaarkooda ha u buraanburaan gaarkooda ha u ciyaaraan waa loo ogol yahay maadaama aroos ay tahay ayadoo nin uusan ku dhex jirin laakiin sida gaaladina u aroostaan arrinka lama ogola sharcan waxa kaloo dhib ah guurka wuxuu ku dhamaadaa macsiyada lagu aasaaso burbur ku dhamaada guurkeena waxay u baaba'aya waa sidaas sababta waxa lagu aasaasaa xaraan in ilaahay lagu caasiyo habeenka la aroosa gabadha in ilaahay intaas oo goor la caasiyo waa lagu tartama sida ilaahay loo caasin lahaa tartan ma gasho heblaaya intaas ilaahay lagu caasiyo habeenkeedii anna waxaan sameynaa intii in ka badan waa arrin aad iyo khatiir u ah waana waxa guryaha ku dumaan waa waxa maaragtay gabdhaha loo furo ayagoo yar yar ah waa waxa aroosyada aroos alle diyaarad lagu qaaday gabadhii caruusadeed iyo ninkii usbuuc kadibna waa kala tageen يعني وعقوبة إلهي حق سكي إيمانه سبحانه وتعالى جزاكم الله خير
Jazakallah khair, Sheikh Fadil Sheikh Abdul Rahman. This person is asking this English question for Sheikh Abdul Hakim. And this person says, I work in a retail, and during the holidays, many customers will always tell us, Merry Christmas. Out of courtesy, can we tell them Merry Christmas or Happy Holidays in response? كل سنة وأنتم طيبين. There's holidays differ. First of all, let's set the ground straight. As Muslims, how many holidays we have? 2. Alhamdulillah. Do we have any more holidays? You sure about that? Okay. Not even your anniversary? All right. So we know what we have of holidays. The rest of the holidays, there are 2 types of holidays. A holiday that is based on a religious perspective, and a holiday that rotates on a yearly basis for reasons other than religious perspectives. Like many countries have the Revolution Day, 4th of July here, and whatever and all that. They're not really considered religious holidays, but they are holidays because Al-Eid in the Arabic language is something that comes at a specific time on a rotating basis. Now, when it comes to religious holidays, these holidays, religiously, they're wrong because whatever religion that they're representing is a religion that is wrong. Do you understand what I'm saying? Okay? So you cannot acknowledge that holiday because that holiday contradicts with your core beliefs of your deen. So when it comes to Christmas, it's a holiday that people celebrate the birth of Christ. In principle, that itself contradicts with our principles of our faith because Isa alayhi salam to us is a man, is a messenger, not the son of God as they call him, or not one of 3. So they celebrate him as his being the Savior and the Son of God. If you're celebrating this with them, indirectly you're acknowledging some of their values, and that is haram. That is not allowed. So you cannot reply the greetings in a sense that you give indirectly or directly that you are acknowledging their holiday of kufr or shirk. Do you understand that? Secondly, I think they also are lost. We recognize Isa alayhi salam. We fast Yom Ashara min Muharram because we appreciate Allah saving Musa alayhi salam. We fast Monday because the Rasul sallallahu alayhi wa sallam was born Monday. Maybe that's the reason. But we do fast Monday. We fast Thursday. He wasn't born on Thursday or died on Thursday. Friday is Eid for us because it's the day that Yom Al-Qiyamah is going to come. And so forth. There's reasons. So we acknowledge days of the year. But even Christians, when it comes to Christmas, it's all wrong. From head to toe, it's all wrong. First of all, when did Isa, what season of the year was Isa born? If you ask any Christian, they'll tell you it's spring. For us, it's summer. وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. A nakhl can't have the date that is right unless it's at the end of the summer. So for us, he was born towards the end of the summer. For Christians, they said when the flower blossoms. So when do the flower blossom? In April, right? So he was not even born within their own scriptures in December. So they got it wrong. Imagine your birthday is last month, and I come to see you and say, Assalamu alaikum ya Khalid. Happy birthday. Excuse me. It's not even my birthday right now. Do you see what I'm saying? The 25th of December is not even the day that Isa alayhi salam was born. That's one. So they got it wrong. Number 2, Santa Claus, or as we say, Bidul Arabiya, Baba Noel. It's a mythical figure that even Christians don't believe in it. So imagine when you teach your kids, you teach them to lie or you teach them to say the truth? Say the truth. You tell them to teach them to say the truth. Christmas, all of it is about a lie. I mean, can you imagine a fat belly kind of guy coming down from the chimney? He'll get stuck in the middle anyway.
He can't even come out of all places to put the gifts, he puts it in socks. How big is the socks? I want a big box, not a socks. Do you see what I'm saying? And in the Injil, they're not allowed to light the trees. They're not allowed to light the trees. What do they do for the Christmas tree? They decorate it. And can you ever imagine a reindeer flying with a red nose? I mean, come on. The whole thing is a lie, lie, and lies. I mean, subhanAllah, the whole Western culture is a lie. When Thanksgiving comes, President Obama pardoned a turkey. Habibi, give me a turkey, I'll eat it. You pardon him, I'll eat it, inshallah. In Halloween, it's all about the devil. وَالشَّيَاطِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ. And when it comes to Christmas, a religious holiday that's based on a lie. And ornaments that are in the 1400s, in the 1400th century, 1400s, they used to kill, the church used to kill anyone that lights a tree or hangs ornaments. And now everyone does it. I mean, they make a big deal that the White House has the biggest Christmas tree. Habibi, you want to lie too? Al-mu'min la yakdib. Al-mu'min la yakdib. A believer does not lie. Christmas is all about a lie. It's all about the lie. So no, it is not allowed. But it is their holiday, okay? It is their holiday. You acknowledge it for them, not for yourself. You do not participate in it. And neither do you give gifts. I can give gift for a kafir, no problem. I can give a gift for anyone. But don't pick those days. في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح ببوانة. I have pledged that I will slaughter an animal in a place called Bawana. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها عيد من أعيادهم? Was there a festival that they used to do it there? Is there a grave that they used to visit? قبر النزار قال لا. قال إذا فأفي بنذرك. If there was things that were done at Bawana that was not allowed, he would not have been allowed to do an ibadah. Imagine a lie. Barakallah fiqh. Jazakallah khair. Jazakallah khair. su-aashani kolley anugu waan la yaabay macnaha laakiin cilmi baa ka soo bixi kara habka loo wordgareeyay laakiin waa sidii la rabay ma ahan Sheikh Cabdiraxmaan jazakallah khair su'aalkan wuxuu leeyahay uu soo araaranaya hadalkiisa gogol dhac u dhigayaa marka wuxuu leeyahay qofkani hilibka baruurta badan wax ma u dhimaa wadnaha iyo jirka intiisa kale taas waa iska hordhac macna su'aal iska caafimaad waaye dhakhtar baa waxaas inuu ka jawaabo haddana waa su'aal diini wax meesh socda laakiin wuxuu ku xijiyay xabad sawdada madaawa mise waa sun beerka dhaawacda oo taa macnaheedu ay tahay maadaama ay saliid iyo waxyaalo mid ay tahay marka qofka wuxuu raaciyay vegetable ka badan inaad cunto soo ay ma u fiican tahay oogadaada si loo yareeyo waxyaalaha sankarowga blood pressure iyo wixii la midka ah marka in a way is like xabad sawdada say ku noqonaysaa daawo iyada oo haddana beerki iyadoo mataqaana saliid ah fadlan بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين برورته هرتا طبعا برورته cuntadii ka mid tahay waana xalaal marka la fiiriyo haddii neef la gowracay ay ka timaado oo qof muslim la gowracay si sharci loo gowracay waa xalaal waa la cuni karaa baruuraha qaarana waliba necessary u ah qofka jirkiisa laakiin baruuraha qaarkood fat acidiska qaara u ah maaragtay necessary jirka u baahan yahay laakiin ma dhibaysaa jirka mase ma dhibayso arrintaas waxay u baahan tahay xagga sharciga waa xalaal ku bannaan tahay laakiin haddii ay u baahan tahay caafimaadka maxaad cunaysaa wax badanoo waxaa jiro xalaal ah oo haddana jirkaada laga yaabo inay ku dhibayaan oo aadan cuni karin sida nebiga calayhi salaatu wasalaam abeese lugaaleya loo keenay waa taqaanaa mise lugaaleyda miisaa la soo dhigay marka nebigu wuxuu yidhi
aniga ma cuni karo dadkayga ma cunaan xaaraan miyaa layidhi nebiga mayuu yidhi xaaraan ma dhahay aniga laakiin ma cuni karo marka cuntooyinka kan nafaqada badan iyo kan waxtarka badan iyo kan qofka dhib u geysanaya iyo waxaa dhakhaatiirta lagala tashanaya laakiin min naaxiya sharciya xagga sharciga haddii la fiiriyo waa xalaal haddii saliidda xabado sawdada nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waa dawaa likulli daa cudur kasta daaway u tahay marka saliidda xabad sawdada ha la cuno haddii la yidhaahdo de saliidihii taxliilka hore uu ku dhisay ninkan saliidihii markaa baruurtay soo gelaysaa marka iyadana xadiiskaas sooma noqonaya xadiis maaragtay dadkii wax beerka waxyeelaynayo amraayo hadduu saa u yahay waa khaldan yahay maxaa xabasooda waxaa la cunaa iyadoo miro ahna waa la tumaa iyadoo budo ah heshaha lagu darsadaa iyadoo maaragtay miraha la cunaa xataa saliiddeeda yacni haddii qofka jirkiisa korka uu marsado waxyaalo badan cunidda keliya maaha waxyaalo badanay taraysaa oo jirka hadduu korka marsado qofka yacni xataa yacni caafimaad ay siinaysaa marka cunidda xadiiskaas waxba u dhimi maayo saliidda waxaa laga yaabaa inaysan beerka waxba dhimin xataa saliiddiisa ma aqaan dhakhaatiirta la weydiinaya laakiin xadiiska sida uu yahaan u rumaynaynaa sida uu yahaan u rumaynaynaa haddii canuga beerka laga hayo ama dhakhtarku uu yahay yaan la siinin saliidda xabad soodada yaan la siinin yacni ha laga dhaafo qofkaas gaar ahaantiisa marka wixii wax iska hor imaana ma aha waa wax isku dhinac u socdo insha allahu tacaala wabillahi tawfiiq jazaak allah khayr sheekh cabdiraxmaan su-aalaha kama wada gaarayno waqtiga ciriiri ah walaal al-akh sheekh cabdiraxmaan wuxuu ii sheegay in waqtigeena uu dhacay 10 minute keliya noo dhiman waxaan u gudbaynaa sheekh cabdiraxmaan in dadka walaalaha warqadaha soo qoray xabad xabad baan kuugu soo sheegi doonaa iyo waxyaabaha ay codsadeen marka inaad ducaa kooban insha allah qof walba ugu ducaysid kadibna ducaa caam ah kadibna umsiya quraaniya waxaan noogu soo xirayaa insha allah sheekh cabdilxakiim walaalkan wuxuu leeyahay sheekh culimmada ka mid ah ayaa wuxuu codsanayaa duco caam ah dhammaan walaalaha duco caam uu codsanayaa marka ducadaas caamka oo sheekh uu codsanayo dib baan u dhigaynaa insha allah maadaama ay ducooyin caam ay tahay sidoo kale taa waxaa la mid ah wiil walaalaha ka mid oo dhallinyarada ragga shaqaynayo aadka u dadaalaya ka mid ah ayaa wuxuu codsaday duco khaas ah sheekh cabdiraxmaan walaalkaas wuxuu jecel yahay insha allah khaas ugu duceey jazaak allah khayr walaalkaas ilaahay subxaana wa tacaala muraadkiisa allah sahla amiin dhahaa amiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu jecel yahay oo khayr ugu jira allah siiyo ilaahayna ha u yasiro amiin allahuma salli calaa sayidina moxamed ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu doonaa asaa garanaa muusan magacaabin isaga ilaahay baa isla og ilaahay ha u fududeeyo اللهم صل على سيدنا محمد جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن إلهي دعاء سكا أقبله نقول أقبله مامو كمد دتك أهل خير كأولاشنا هل كان جوكته أي استيت كلا أي كسر صدق قصتي العقبة لا صباح ذي هو يرد أبهد أجريودي يو ولا الكد أي صدق صباح ستي إن إلهي سبحانه وتعالى أجرسيه وجود مدافع دعائنا قلبنا يا عبد الرحمن جزاك الله خير والدعاء maamada khayrka nagala soo qayb gashay halkan dadku waa kala nasiib badan yihiin ilaahay baa khayrka u kala hago insha allahu tacaala dadkaa dhintay oo u niyeysatay ilaahay ha ugu dambi dhaafo subxaana wa tacaala qabrigooda allah uga dhigo rawda min riyaad aljanna ilaahay subxaana wa tacaala jannadii allah ku geliyo qabrigooda ilaahay nuur ha uga dhigo ayadana ilaahay khayr badan allah siiyo allahuma salli calaa sayidina moxamed jazakum allah khayr gabar ayaa waxay dalbanaysaa duco khaas ah gabar kale oona waxay dalbanaysaa xanuunsan xanuun u hayo in loo duceeyo labadaas gabdhood ducay dalbanayaan sheekh cabdiraxmaan jazaak allah khayr gabdhahaas insha allah muraadkooda allah sahla amiin dhahaa amiin ilaahay subxaana wa tacaala xanuunka allah ka qaado gabadha xanuunsan amiin inta xanuunsan allah ka qaado amiin xanuunku waa dhib badan yahay runtii qofka hayaa garanayo marka ilaahay subxaana wa tacaala xanuunka allah ka qaado amiin muraadkeedana allah sahlo allahuma salli calaa sayidina moxamed jazaak allah khayr sheekh cabdiraxmaan gabadhaana waxay codsanaysaa ilma canug ayaa ka xanuunsan dad badan baa xanuun sheegana sheekh cabdiraxmaan gabadhan waxay rabtaa si khaasa in loogu duceeyo canug baa ka xanuunsan
marka u duceey insha Allah barakallahu fiik gabadha canugeeda Allah u caafiyo amiin dhaha ducada waa isla joognaa hadda ilaahay ducada amiinta waa duca nafteeda amiin yani marka amiinta ku kaalmeeya insha Allah ilaahay canugta Allah u caafiyo ilmahaas ilaahay subhanahu wa caafimaad Allah siiyo daawadooda ilaahay Allah u soo dejiyo inta ilmaha ka xanuunsan yihiin oo dhan Allah ilmaha u caafiyo ilmaha sisi ah isbitaalada kuwa ku jira kuwa sariiraha saaran الله عافيه آمين اللهم صل على سيدنا محمد بارك الله فيك قبلنا waxay codsanaysaa sharciyada ka maqan waxay leedahay sharciyo ayaan u baahanahay oo iga maqan in caruurtana la igu duceeyo waxaan filayaa in hadaan sheekh aadan sidoo kale loogu sheegay marka lagu celiyo sheekh Cabdiraxmaan بارك الله فيك إن شاء الله إلهي أوفر شرعك شرع الآن تودي بديها ودك لو ما نولان كلا شرع دوس مفك الحين marka ilmahan Allah wa caafiyo ilaahay ilmaha caafada Allah u siiyo Allahumma salli ala sayidina Muhammad sidoo kale nin walaalaha kamid ah ayaa asna gabaray ka xanuunsan tahay gabar yar ayaa ka xanuunsan in ilaahay subhanahu wa ta'ala u caafiyo ayuu dalbanaya in loo duceeyo ilaahay gabadha wa caafiyo walaalkeen gabadhiisa Allah caafiyo amiin dhaha amiin jazakallahu ilaahay caafimaad degdeg Allah siiyo Allahumma salli ala sayidina Muhammad sidoo kale hooyo ayaa leedahay gabar baa aad iiga xanuunsan oo dhib badan sheeganaysa oo muddo ay ka xanuunsanayd oo dalbanaysa in loo duceeyo Sheekh Cabdiraxmaan jazakallahu khayr hooyada gabadha Allah u caafiyo amiin dhaha Allahumma salli ala sayidina Muhammad ilaahay caafimaad Allah siiyo gabadha xanuunsan amiin Allahumma salli ala sayidina jazakallahu khayr Sheekh Cabdiraxmaan saailka qofkan wuxuu dalbanayaa duco in ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka u fududeeyo ayada iyo xaajigeeda iyo ilmaheeda ma sha Allah wadaadkuna uu ka xanuunsan yahay oo ma taqaanay muddo xanuunsanaa waxna sadaqaysatay oo waxyabahday gabadhaas waxay leedahay quraanka aniga ilmaha ilaahay noo fududeeyo wadaadku iga xanuunsanay ilaahay uu ii caafiyo hal ii duceeyo leedahay jazakallahu khayr Allahumma salli ala sayyidina reerkaas Allah ka dhiga reer ahlu quraan Allah ka dhiga amiin dhaha إلهي قرآنك الله جعل يسيو إلهي أفضل قرآنك حفظنتي سيكو عمل فلدي سبا أبها سبحانه سنة الله عافيه إلهي عافي ما تقدر الله سيو اللهم صل على سيدنا محمد قبل أنا وحيلا هاي قبل صاحبتي أو عنو كحنو سيا هاي وأنا أد صاحب النهاية وحن جعل الله اللي يقول عيو بارك الله فيك الله كو عافية صاحبته آمين ده اللهم صل على سيدنا محمد آمين جزاك الله خير قبل أنا وحي السنة إن عيالك اللي يقول عيو أيضنا guud ahaan ciyaalka ayay dalbatay laakiin wax gooni ama soo sheegin ilmaha Allah u hagaajiyo ilma saalixiin Allah uga dhigo amiin dhaha amiin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amiin jazakallahu khayr gabadhaani waxay leedahay caruurta in ilaahay quraanka iigu sahlo hal ii duceeyo walaalkii oo xanuunsanna hal iigu duceeyo walaalkeed Allah caafiyo amiin dhaha amiin ilmahana Allah u hagaajiyo amiin quraanka Allah u fududeeyo amiin reerkaas khayrka Allah waafajiyo amiin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jazakallahu khayran maamadan waxay leedahay hooyaday iyo aabahay ayaa 500 u bixiyay oo geeriyooday in Ilaahay subhanahu wa ta'ala gaarsiiyaha liigu duceeyo Allahumma salli ala sayyidina hooyadeed iyo aabaheed Ilaahay subhanahu wa ta'ala qabriga Allah u nuuriyo إلهي سبحانه وتعالى قبرك روضة من رياض الجنة الله وقدقه إلهي دنبك وذا هدافه إلهي هون حريستو إيضا الله دنبك إذا دافه إلهي هون حريستو شيخ عبد الرحمن ولا حالي كمدة ولا لها مسلمين تا أو سومالي هين باويديستين والد كله دعيو وحالة دي هرنا لها الله مركا هبين دنبا عاوان ودي برقني ولا لك صدنا لما جوغو إنا دعيس جزاك الله خير wuxuu jecel yahay Allah siiyo amiin daawaakaas ilaahay khayr Allah siiyo wixii shar Allah ka hayo wuxuu jecel yahay Allah siiyo Allah muraadkiisa u fududeeyo amiin Sheekh Cabdiraxmaan jazakallahu khayr ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa in aan ku soo gudbiyo oo aad duca khaas ah oo intii aad ku dadaali kartidna ku dadaalaysid insha Allah aad u duceysid dhammaan walaalaha hawshan ka qayb qaatay gabdho badan oo waxaa jira u soo taagnaa habeen iyo maalin ama inay cunto kariyaan ama inay dadka kala hagaan ama inay caruurta hayaan ama inay lacag bixiyaan soo taagnaa baa jira wiilal dhalinyaro waxaa jira shaqooyinkooda u joojiyay ama tagaasida dhigtay banaanka oo ka shaqaynayay day and night habeen iyo maalin marka Sheekh Cabdiraxmaan iyo culimo u soo safartay oo dhul badan oo fog ka timid ayaa jirta sheekayga su'aalihii waan dhameeyay ducada hadda tan baa lagu dhex daraya marka Sheekh Cabdiraxmaan insha Allah in aad
dadkaas u ducaysid oo run ahaantii lafdhabarta u ahaa barnaamijkan inuu sida quruxda badan u dhammaado jazaaka allah khayr بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين خير كان مؤتمر كان عندي كشقيسي أردن إلهي سبحانه وتعالى دنبود الله ضعفه إلهي مرادك إذا هسهلو أنت كخدمي سميشان قبري ويلي واحد دونا هالنقضاني إلهي مرادك إذا الله سهلو وحي جعلهن الله سيو وحا أي كس وين ولعقت وقبع قدين تكسي كبر الله سيو إلهي سبحانه وتعالى الله واسع كدقو إلهي خير يا إيمان الله وبدلو إلهي جنة سيها وبدلو اللهم صل على سيدنا محمد إلهي خير الدنيا خير آخر الله سيو تدك كشقينا مؤتمراتك يعني وح بدني أهرايا تدك وحي مدين إلا دعي وح بدن إلهي وحاول ديسينا بأسماء الحسنى وصفاته العلى إلهي سبحانه وتعالى إنه مراد كود إلهي سيو اللهم صل على سيدنا إلهي إنه جنة قليو إلهي نارته وكحجابه اللهم صل على سيدنا محمد كو إلهي ملائكة الجنة وخدميس الله كدبو ما دام خيرك كشقيان اللهم صل على سيدنا محمد جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن